سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سودا صاحبي الوا مركل مقال عصوب مقال كان ما تحن قال دونا ما نكشرح دونا سيدات وكيتسن لايد أم بعد ولا قال يسن لايد موبيل داتا دام إنترنت كوجتشر موبيل كا مر بدن أياد جو سوشيال ميديا كله كتشرا أم باستعمال أي أبليكيشنز كله إنترنت بدن لقاعنا أديكم جريني وح إنترنت كم بدن كعنا يا طبعا حنكتوس دونا shan meelood oo internet badan ka cuno marka isticmaalaysid applications kale soo kale hadii aad u baahan tahay inaad xadidatid inta aad maalinka ugu tala gashay tusaalahan hadii aad maanta ku tala gashay 10 MB amba 100 MB amba 1 GB inta aad ugu tala gashay si aad u xadidin lahayd application aad ku xadidin kartid ayaan kula wadaagi doonaa hadaba ugu horeyn aynu guda galno muuqaalka Shifo official application kuwa kan ku muuqda magaciisa waxa la raahdaa Daytly wala raahdaa hadaynu soo furno Play Store kana kama helno Play Store kana hadaynu soo furno kama helno application kan lagama heli karo Play Store ka Daytly dad ku qortid wuxuu ku soo saari doonaa applications badan oo dhamaantood aan shaqeynin amba fayga waxa soo furan doontaa browser-kaaga amba Chrome-kaaga browser-kaaga ayaa soo furan doontaa kadib qaybtan searching-ka aad ku qori doontaa Daytly APK Daytly APK aad ku qori doontaa isaga si toos ah kugu soo saari doona website-ka aad kala degaysid application-kan runtii waa application aad faa'iido badan kana sareeyo Daytly Frontier amba APK-ga website-ka ku qoran tahay ayaad kala soo degi doontaa markaad ku dhufatid kan soo horeeya habkan ayuu kugu soo saarmi doonaa oo halkaas aad oran doontaa download APK hadda markuu ku download gareysmo calaamad yar oo download data ku tusi doonaa haddii uu ku tusin wuxuu ku gelin doonaa saddex dhibcood soo furan doontaa kadib meesha download aad ku qoran tahay kasi geli doontaa bartan aad ka soo install gareysan doontaa oo bartaas ay ku soo gelin doonaa hadda application-kan labada muhiimadood ee ugu weyn ee uu qabtay waxa ay yihiin adigoo tusaalahan social media isticmaalaya tusaalahan Facebook waxa ku soo dhaca fariimaha WhatsApp internet-kaaga ayuu isticmaalaya adigoon ku jirin haddaba waxa iska xir doontaa dhammaanba apps-ka kale ee kula wadaaga internet-kaaga marka soo safartid halka calaamada weyn ee ku soo saarayo off ayaad on ka dhigan doontaa on markaad ka dhigatid dhammaan waxaan ka naga xiray apps-kiina la wadaagay internet-keena iyo iyagoo furnayn talabaadna halkan waa manage data-kaaga apps-kaaga iyo waxyaabaha si kala wadaagayaan ayaad ka ogaan doontaa ta ugu wanaagsan ee uu leeyahay ugu muhiimsan waa daily limit amba xadiga loogu talagalay maalinka ee ku qoran tahay tusaalaanta daily limit-ka haddaad maanta ku tala gashay 100 MB halkaas aad ka dhigan doontaa 100 MB sidoo kale 1 GB bartan ay ka dooran doontaa GB amba MB inta ku tala gashay markii gaadho xadiga aad ku tala gashay internet-kaaga fariin ay ku soo darmi doonaa oo way iskuin doontaa data sidoo kale hadda meelaha ugu badan ee internet-ka inaga cuna waxa kamid ah updateska apps-ka loogu jiraya si automatically isku update gareeyo inagu nugiin hadda si aad task xidid waxa soo furan doontaa Play Store-kaaga Play Store-kaaga ayaa soo furan doontaa kadib account-kaaga ayaad ku sii dhufan doontaa basta dhibcood aad batu ku soo saaro settings ay ka tag doontaa settings marka ka tagtid meesha network preferences ku qoran tahay aad ka tag doontaa waxaad ku dhufan doontaa auto update apps halka ugu hooseyso waxaad ka dhigan doontaa inka offer wifi only ku taa laga yaabaa don't update apps ayaad ka dhigan doontaa dhan ayaad ka sii doon doontaa oo application dambe si automatically isku update garan doono soo kale adigoo WhatsApp-kaaga ku jira ayaa waxa lagu soo diraa fiidiyo dhaadheer oo MB badan ka cunaya fiidiyada adigoon wareejin ay iska soo galaan oo internet-kaaga ka cunaan haddaba sidaas kaga xidhid WhatsApp-kaaga soo furo WhatsApp-kaaga ayaa soo furan doontaa kadib saddex dhibcood ee geeska midiga la ka tagi doontaa settings meesha ay ku qoran tahay ka tagi doontaa settings marka tagtid storage and data meesha ku qoran tahay ka tagi doontaa when using mobile data ka dhigan doontaa
kadib dhammaantood tig ay ku saaran yihiin tigtaad ka wada qaadan doontaa oo kuma soo galmi doono adigoon arkin oo wareejin internet dambana kama cuni doono application. sidoo kale meelaha internetka badan ka cuna waxaa kamid ah Chrome-kaaga amba browser-kaaga. markaad soo furtid browser-kaaga amba Chrome-ga, saddexda dhibcood ee geeskan midig yaala ayaa soo furan doontaa. xaggan ayaa soo furan doontaa saddexda dhibcood ee xaggan midig yaala. kadib settings ay ka tagi doontaa amba meesha ay ku qoran tahay ugu hooseysa ee settings markaad ka tagtid meesha ay ku qoran tahay light mode ay kusoo dhifan doontaa. halkan ayaad off on ay ku tahay off ayaad ka siin doontaa oo iyana waxa kamka applications badan inta badan ay ka cunto. tusaale waxay naga cuntay 646 MB. marka on off ayaad ka siin doontaa oo iyana waxay ka cuntaa internet. meelaha aan ku tilmaamay iska xir doontid iyo application-kani runtii waxay yareen doonaan internetkii badnaa ee kaaga bixi jiray in daatada badan ee mobilkaaga mar walba ku sheegan kartay. soo kale haddii aad application-kan markaad la soo degtid maalin walba waxaad xadidan doontaa internetkaaga amba intaad ugu tala gashay inaad maalinka isticmaashid. inaad aad iyo ugu faa'iideysanayaan filaya intaas aan kusoo guudal muuqaalkeenan fadlan tahay boqoshada ka subscribe saar video like saar aad iyo aad u mahadsantahay.